soo quraanka kuma akhridaan nabi Muuse iyo alayhi salaam iyo Fircoon in badan soo quraanka kuma soo noqdo ya imaam Sayyid Qutb ba isweydiinaya maxaa quraanka ugu soo noqday nabi Muuse iyo Fircoon inta nabi Muuse iyo Fircoon laga sheekiyay quraanka ayaa ka badan inta nabi Maxamed laga sheekiyay sallallahu alayhi wasallam soo quraanka kuma haystaan Sayyid Qutb isweydiinaya markaa maxaa sheekadan maxay u soo noqotay markaas wuxuu yiri ha sheekadan waxa ku jiro buu saddex kooxood saddexda kooxood haday hagaagaan mujtamacaasi wuu hagaagaa saddexda kooxood haday qalloocsamaan mujtamacaasi wuu qalloocsamaa waxa ku jiro buu yiri Fircoon oo maxay sheegtay ilaahnimu sheegtay ma uriikum illa ma ara wa ma ahdiikum illa sabiila ar-rashad haddaan qufaco ila qufaca gaariya yiri Allah u dhaarista ayuu yiri waxaan soo gaadhay odaygiyo hadda wuxuu yiri markaan cadooday ila cadoodu buu markaan qufacana ila qufaca oday isku qaadqaaday birho ma uriikum illa ma ara wa ma ahdiikum illa sabiila ar-rashad wuxuu yiri waa maxay waa tabaqa السياسي وهجان سياسات أو قلّع سمي أيو فرعون تسال وياه كنتاليس سو كلمة ده ما استعماشان كنتاليس دكتاتور نمو فرعون باوه سامبل يا هوس جوجا قارون أيوي وأيو وتجارة العك هاي ستيدي كسبت العكتة جريتان كنتاليسكا iyaguna lacagta ku qoodiya kalitan iska inuu sii joogo ilaa ka saaxada ka baxayaan ya maanta marka islaam kooxdii koowaad islaam doonka cadawga koowaad ay haystaan waa iyo dictatorship labaad yaa la dagaalamaya kuwii lacagta haystay lana hadii kale waxa leedahay zakad bixiyo oo mashaariic xaraan ku qaadanaysan dambe ma jiro ummadda la simantiin meesha بوري iyo sigaar iyo khamrina igu iibin maysaan no more sanaf خلاص marka waana kan si arjo joogan kan inta yar ogon haamaan ba hore soo maha so ya Fircoon kuma sheegin ya kala sheekada nabi Muuse yaa ku soo noqnoqda haamaan yu haba taqana wadaad qalooc samay oo yiri hay nawad jazakallahu khair أنا أنت درسي ولد قلّع سما مصيبة هذا قلّع سما مصيبة كدر ندوك بجرته ولد قلّع سما ما مات كله إنه من عصبة أحمد بن حنبل يا حرج أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة معها مدي ذي مسألة دي خلق القرآن مدي ذي مير وبدعة يا قدري إمام واثق مدحوينه بريء جوي إمام أحمد بن حنبل يا قدري ولد ما قدري تضبيط تمام ولد بيسوف ليسي واثق أحمد بن حنبل الضارة انت مو كبدي احمد بن حنبل بقر كل المسلمين حجته كورو يا حرام